maxaad ku qeexi lahaydeen xiriirka maxaad oran lahayd xiriirku waa maxay xiriirka maxaa ku qeexi kartaa iminka tusaale ahaan maxaa ku qeexdeen waynu isweydiinay xiriirka maxaad tirahdeen ha xog isweydaarsi dhex maray dad waaya haye maxaa kale ku qeexdeen intaa uu sheegay walaalkeen mooyaane wada hadal waaya maxaa kale ku qeexdeen waa waxay isku fahmi karaan bulsho meel isugu timi haye maxaad tirahdeen kale marka xiriirka markaan doonayna inaanu qeexno ta ugu kooban ee aanu isna ugu macno ballaaran tahay waxa weeye inuu yahay xiriirku waxa uu ku dhisan yahay waxa ay ku dhisan tahay nolosha ibni aadamku dhammaanteed kuna horumarto xiriirku inuu yahay maxay waxa ay ku dhisan tahay nolosha ibni aadamku dhammaanteed kuna horumarto ayaynu odhan karnaa waa xiriir waay hal su'aal baan idin weydiinayaa qofka marka la doonayo in la ciqaabo maxaa lagu sameeyaa dawladdu maxay samaysaa marka la xidho miyaa la googooyaa maxaa lagu sameeyaa xidhiidhku baa laga jaraa keliya dabadeedna isagoo toobad ha waad ciqaabnaanaysaa dabeedna xidhiidhkun baa lagaa jarayaa marka xidhiidhka lagaa jaro 4 maalmood markaad ku jirto waxaad oranaysaa waan toobad keenayaa halaysii daayo wax alla iyo wixii aan ku jiray waan ka baxay laguma dilin laguma garaacin dhibaato laguma geysanin wax kaloo lagu yeelay ma jirto keliya maxaa lagaa gooyey waaye tusaale kale aan soo qaadano qof Chinese-ka yaqaan miyuu jira waaye haddaan maanta China tagno oo China laynagu xidho Chinese-ka miyuu afgaranayna haddana waynu ciqaabnaanayna maxaynu ciqaabnaanayna because xataa dhaqdhaqaaqan dadka iyo buuqan iyo waxaan socda ayaa nolosheena macno u sameynaya luuqadaha kale ee xataa aynaan fahmaynayno maqlayno maxaynu kala soo baxaynaa macnayaal maxay isla eegayaan markay eegayaan talo maxay sameynayaan markuu gacanta taagayo muxuu u jeedaa markuu kan leeyay muxuu u jeedaa dabadeedna maxaad doonaysaa waxaad doonaysaa insaanku waa aniis baa la odhan jiray soo ma ahayn waa mid wax weheshada wehel baad doonaysaa wehelkuna muxuu ku yimaadaa wehelkuna wuxuu ku yimaadaa xidhiidh inaynu wada hadalno waxaa la odhan jiray afar farood la isma fahmi waayo xataa qofka haddaas luuqada aqoonin farahaydun ku wada hadli soo saama marka xiriirku waa waxa nolosheenu ku dhisan tahay waxaana daliil cad u ah marka layna doonayo in layna ciqaabo isagu ma laynaga jaraa keliya marka la doonayo in layna ciqaabo inuu toobad keenno oo wax kasta aynu ku jirnay aynu ka noqonno waa laynaga jaraa waayahay allahuma salli calaa maxamed ku horu marto markaynu leenahay ku dhisantahay waynu garanay ku horu marto maxaynu ujeednaa si aynu isu fahamno si aynu u wada shaqaysanno si aynu u wada noolaano si aynu isu guursanno si aynu wax u kala iibsanno si aynu horumarkeenu soo intaa kuma yimaado horumarkeenu muxuu ku yimaadaa gurigan markaynu dhisayno muxuu ku yimaadaa inaynu de wada hadallo qolkan markaa dhisanayseen ninka construction community isaga kiin yimi buu gartay inaad hool u baahan tihiin oo dabadeedna markaasuu yidhi hool baan idin dhisaya markaasuu idin dhameeyay sidii waa hoolkii maya idinkaa baahidiina u sheegay